Haweeney ayaa waxay garab istaagtay ninkii qabay, si sharaf leh ayayna isu garab taagtay. Ninkaas isaga ah waxa uu ahaa nin fikirro badan sita, riyooyin badan oo wanaagsanna ku riyoon jiray. Waxaana ay u dulqaatay gabadhaasi noloshii ugu adkayd ee ninkaasi uu ku jiray, ilaa iyo heer ay gaadhay inay hantigeeda gaarka ku bixiso mashaariicdiisa uu isagu wato. Sannado badan ayay u wehelyeeli jirtay, mar walbana waa ay taageeri jirtay, ilaa uu ka guulaystay. Hantiile ayuu isu beddelay, faqrigiina waa uu ka tegey. Wuxuuna dhihi jiray mar walba Ilaahay i waafajiyey ayaa mahad leh. Xirfad aan anigu leeyahay iyo tamar aan anigu leeyahay midnaba anigu waafajin. Ilaahu haweeneydana ii barakee buu odhan jiray. Meeshii ugu sarreysay markii uu noloshiisa ka gaadhay ayay haweeneydii waxay bilowday inay ugu manno sheegato wixii ay soo tartay. Waxayna u sheegtaa mar kasta inay iyadu ka soo saartay wixii uu ku jiray, haddaanay iyadu joogi lahaynna uu xashiishla miskiina noqon lahaa. Mar walba ninkani wuxuu ku qaabili jiray haweeneydan dhoolla caddayn iyo dulqaad, sheegi jiray inay nolosheeda raaxada leh iskaga noolaato, aanay xasuusan wixii hore. Isaga ayaaba u xasuusin jiray wixii ay soo tartay. Laakiin haweeneyda ayaa dabeecad waxay ka dhigatay inay macal dadka hortooda ku dacaayadayso, kana hor timaado barnaamijyadiisa, ilaa inta uu ka xadhooday uu u dulqaadan waayay howlihii ay waday. Waxa uu warbixintii u gudbiyey qoyskoodii, waxaana lagu kulmay in gabadhu ay iyadu khalad ka leedahay. Iyadoo intaasoo dhan loo sheegay, haddana kama aysan joogsan wixii ay falaysay. Mar walba waxay ugu sii adkaatay wixii ay ku dhaqmaysay. Xal kale waa uu waayay inuu ka tago mooyaane, si ay iyadu isugu laabato. Waxay heshay dumaashigeed xaaskiisa oo walaasheeda, oo wax walba la qabanaysa ninkeeda, qur-aanka la subcinaysa, una sheegaysa salaada inaanu xilligeeda dhaafin, mar walbana khayrka ku kaalmaynaysa, una farxaysa markii ay iyadu xanuunsato ama ilmaheedu xanuunsadaanba. Waxayba markiiba booqasho ku aaday haddana walaalkeedii ka yaraa gurigiisi, kaasoo deggan guriga habaryartiisa, isaga oo ka bogsaday qalliinkaasi oo ay kaga baxday wixii uu shaqaynayay 3 qaybood oo 2 qaybood. Ninkani ayaa waxa uu intaa kadib ku khasbanaaday inuu xaaskiisa la dego qoyskii qaraabada uu la ahaa, habaryartii, sida dadka qaar u yaqaanaan sodohdii, oo uu noqdo inalayaal, ilaa iyo maxkamadii u xukumayso inuu xaq u leeyahay shaqadiisii. Waxa ay markiiba istiri walaalkaa waa la xumaynayaa, oo xumaan ayayba u fikiraysayba, sababtoo ah wuxuu u joogaa gurigii uu ka ahaa xididka. Laakiin waxay la yaabtay markay aragtay walaalkeed oo ku nool guri uusan lahayn sidii ninkii lahaana ugu nool, qof walibana uu u shaqaynayo, wanaagna ugu shaqaynayo, inuu ka raali noqdona ay doonayaan. Waxayna aragtay gabadhii dumaashideed ahayd markan ee walaalkeed qabay, ee loo ahaa inalayaalka, oo xaaladda dejinaysa mar walba, jawigana u diyaarinaysa si uu shaqadiisa u aado isagoo faraxsan. Cashar ayay ka baratay, wax kasta ee ay soo aragtay oo ka duwan dhaqamadeedii xumaa. Waxayna nafteedii ku tiri ninkayga ayaa waxba ka wanaagsanaa, ninkayga ayaana si nadiif ah ila dhaqmi jiray. Dadkani 10% kalama dhaqmaan zawjyadooda sida uu aniga igula dhaqmi jiray oo kale. Sidaa daraaddeed waxay garowsatay inay khaldantay, waxayna u laabatay ninkeedii iyadoo ilmeynaysa, una sheegaysa inay ka xun tahay wixii ay fashay. Wixii u horreeyay ee ay qabatay waxay noqotay inay 2 ragcadood oo salaad shukriya tukato, iyadoo Ilaahay ugu shukriyaysa inuu hanuuniyey kana gargaaray shaydaankii. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
haddaba daawade haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan subscribe saar si aan u soo badino muuqaalada noocan oo kale ah mahadsanid.